waxaa sharaf weyniya inaan maanta hortiina imaado aniga oo uga wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo munaasabadan furitaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynaha oo howlo degdeg ah oo la xiriira shaqada amniga dalka awgeed aanay u suurto gelin inuu ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan balse anigoo ah ra'iisul wasaarihiisii ii soo wakiishay mudane guddoomiye mudanayaal iyo marmooyin sida aad la socotaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo labadii sano ee la soo dhaafay waxay aasaaska u dhigtay hanaanka dowladeed oo leh hiigsi dheer kaasoo ku salaysan himilooyin waaweyn ee qorshaha horumarinta qaranka iyo barnaamijka xukuumadda lagu ansixiyey oo lagu meel mariyo 4 todobood oo ah hanaanka ay u agaasiman tahay shaqada xukuumadda federaalka Soomaaliya himilooyinkan waad ogtihiin oo ay xukuumaddu iyo kulligeenba aan wada hiigsanayno waxaa ka mid ah dib u habeynta iyo tayeynta dhammaan hay'adaha dalka gaar ahaan hay'adaha amniga qaranka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha kordhinta dakhliga dalka iyo hirgelinta barnaamijka geedi socodka deyn cafiska dalka si uu dalku isugu filnaado dhammaystirka dib u eegista dastuurka federaaleynta dalka iyo qabashooyin ka doorashooyinka sidoo kale gaarsiinta iyo daadejinta adeegyada bulshada aasaasiga oo ay ka mid yihiin caafimaadka biyaha korontada iyo waxbarashada himilooyinkaas iyo kuwo kale oo ku qeexan barnaamijka xukuumadda ee dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa dalka u horseedi doona mustaqbal ay ku noolaadaan jiilalka inaga dambeeya taasoo macnaheedu tahay in aan maanta dhammaanteen haysano fursad aan taariikhda dalka uga geli karno baaldahab ah waa haddii sidii hore la sheegay aan u wada guntanno xaqiijinta himilooyinkaas aynu qaadnay wadiiqadii lagu gaari lahaa mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin amniga iyo cadaaladda oo ah tiirka koowaad ee higsiga xukuumaddeena ayaa waxaa xoogga lagu saaray hirgelinta qorshaha amniga qaranka fulinta qorshaha kala guurka amniga iyadoo si weyn loo dardargeliyey isku dhafka ciidamada qaranka si loo helo ciidan astaan qaran leh kuwaasoo ku howlan fulinta howlo loo qorsheeyey waxayna xukuumaddu si buuxda ugu guulaysato inay hirgeliso tirinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan hore loo samayn ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliyeed waxay diiwaan gelisay 16,203 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mid walba xuquuqdiisa ay si toos ugu dhacdo akoonkiisa gaarka oo mobilkiisa ku helo hadda waxaa gacanta lagu hayaa xaqiijinta inta hartay iyo tayeynta iyo taakulaynta dhammaystiran ee dhammaan ciidamada qalabka sida dowladdu waxay ku haminaysaa in dib u habeynta ciidamada oo dhan si aan uga adkaano argagixisada la soo afjaro dhammaadka sanadkan haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale dowladda Soomaaliyeed waxa ay bilowday inay la wareegto goobo waaweyn oo markii hore ay hayn jireen ciidamada walaalaheena ee noo soo gurmaday AMISOM sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in booliska Soomaaliyeed uu bilaabay qorshe cusub oo lagu dardargelinayo sugidda amniga caasimadda waan mar dhow rajeynayo inuu miro dhal noqon doono
عكرون إذا إذن حقاجنا يا إن عندما حوج الدلكنا كهوليهين خلق الله لو حوجنا يسويد أمنية عاصمة وحامرك مرق مدونتا إنه أمن وياهي مسؤولية وزارات وقف ولبا ونجمد يدور كله ياهي مرك إياه أي إذا مدى إنه كهوليهين خلق بعدله والله قب حسنا يرجع حسنا حدنا مواد والبوح على جربا سيدي قبل لي هالكنسوي ساكتين ودور كي سقط ودنا قدومي إذا مدى إنه ونفتوه ريال تاريخ عد كله سويال كومد الصوماليات وحنا كوكل صونا هاي إن يكمل دلين دونان هول الله صعدا يدب حبينتا إسلام كان أي شعب كانوا والسورة قلين دونان إن نولانو نبض يحسلوني تام عن ربا إن أنا حشقي جيو دولها أقل كسرة هي الشعب كصومالية دورن إن حكومة دكجو أنت هاي إن لدى ميسترو عيدا ترسن توسن تيسن ومثل دون الشعب كصومالية تديرها هيرا مدن قدومية مددي كوبناد أي جرتي دولة وهجامية مدحوينها إنه هولات بدن أيها لقى قبتي دنك دقالها وحنا حوج سارني كروقاديس الدخل جدلك يدعو لتيينا يو نظام كمامل كمالية دلك وعدلك لو سميه ميزانية سودة لترن تاسو سورة جلسي إن حكومة فلسو برنامج كذا أنا نقادا وحدين وأنا ندلك جلين دين وعن رواينا الحسوسية أقل كسرة هي شعب كصوماليات دين تدنيد أي نقول هذا هاي وكله 5 بليون كسكو دولة مدحوين فرماجو وهجامية هل كان وحي يعتمد بقول مليون أو دينا ويقول هاي شعب كصوماليات أما شغالة أما عيدا أما قندراس بحية وفنان تمامل كمالية الدولة دينا أوجد وعنكو قولي سنة لغاية سنة عن جوجني دولة إني بحسب مشاركة عد والبا ويكمل ديهين حلبان هذا هل كان فرديا أنا نقادا وحدينا وعند بهابين كسميني هبكو ورنت عن وهل ميل أو كلية أنا سوق كاني وزارة المالية أو ماشى اللي سوق كاني يبنجا هل كمركي هراء هي أدب بدن أو كل الدواني معمول جيران مركي عن رئيس الوزراء النقضي كو يلباتن وزارة دوت أو كم بدا وزارة لها حكومة دا أيام مد ولا بالعقاد جرتي مشروعات السجاي والصو أفجر sidoo kale waxa la xoojiyay in kharashaadka dawladda oo dhan laga wada bixiyo hal khasnad oo ah khasnada guud ee dawladda sanadkii la soo dhaafay dakhliga dawladdu wuxuu kor u kacay 30% marka loo eego sanadkii ka horeeyay dakhliga sanadka 2017 waxa uu ahaa 142 milyan iyo bar halka sanadka la soo dhaafay uu gaaray 184 milyan waa midka laga aruuriyo ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada kaliya waxaan rajaynaynaa in sanadkan 2019 uu dakhligu gaaro 190 milyan waxaan idin xasuusinayaa 3 bilood oo sanadkan hadda ugu horeysay waa 3 bilood ee ugu sareysay dakhli aruurinta ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay sidoo kale waxaan dadaal badan oo miro dhal ah gelinay sidii dalka loogu raadin lahaa in la ka cafiyo deymaha culus ee la ku leeyahay deymahaasi waxay caqabad ku yihiin in dalku helo dhaqaale looga shaqeeyo horumarinta dalka iyadoo taas maskaxda lagu hayo waxa dawladda madaxweyne farmaajo ay heer wanaagsan oo gabagaba ah soo gaarsiisay barnaamijka deyn cafiska aan kala shaqeyno hay'adda lacagta adduunka waxaan ka soo baxnay dhammaan shuruudihii looga baahnaa dawladda Soomaaliyeed waxaana bisha soo socota haddii Ilaahay yiraahdo la saxiixan doonaa qandaraaskii ugu dambeeyay ama heshiiskii ugu dambeeyay oo ahaa kii deynta nolol kaga cafilaa haddii Ilaahay yiraahdo hiigsiga xukuumadda iyo dawladdu waa inaan kulligeen gaarno deyn cafis hordhaca sanadkan dhammaadkiisa 2019 ama bilowga
sanadka 2020 waa haddii kulligeen aan ka wada shaqayno marka deyn cafis hordhaca aan helno waxaa inoo furmi doona ila dhaqaale oo ay ka mid yihiin deeqaha horumarineed oo aan ka heli doono bangiyada adduunka iyo bangiyada horumarinta adduunka waxaa kale oo ay ganacsatada Soomaaliyeed heli doonaan iyo cid kasta oo danaynaysa inay dalka maalgashadaan inay isticmaalaan hay'adaha hoos yimaada bangiga adduunka oo ay ka mid yihiin IFC iyo MIGA oo hadda naga xiran deynta nala ku leeyahay awgeed dib u habeynta iyo isla xisaabtanka lagu sameeyay dhanka dhaqaalaha labadii sano ee la soo dhaafay waxay keentay inay dunidu bilowdo in la aamino waxaan miisaaniyad toos ah oo gaaraysa 100 milyan oo euro ka helnay midowga Yurub taasoo 15 milyan oo ugu horeysay ayna soo gaartay 34 milyan oo ku xigtana aan sugayno bilowga bishan soo socota bangiga adduunka isaguna wuxuu inagu abaal mariyay horumarka aan sameynay awgeed dhaqaale gaaraya 140 milyan oo 80 milyan oo ugu horeysay la ansixiyay mudane gudoomiye si looga mari dhaliyo dib u habeynta amniga iyo dhaqaalaha waxaa muhiim ah inaan ogaano in Soomaaliya hanaanka dawladeed ee federaaliga ah ay qaadatay iyadoon la diyaarin shuruucdii iyo habraacyadii loogu guuri lahaa hanaankaas ku cusub jamhuuriyadda haddaba mudane gudoomiye dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go'an iyadoo ka duulaysa ballantii ay qaaday 2017 inay diyaar garow xoogan u gasho samaynta shuruucda iyo xeerarka doorashooyinka iyo federaaleynta daajijinta awoodaha dawladda iyo adeegyada bulshada in la helo Soomaaliya federaali ah nabdoon hiigsanaysa barwaaqo waxay si cad ugu qeexan tahay dastuurka ku meel gaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka oo hoosta ka xariiqay in geedi socodka dib u hanashada dawladnimada iyo dimuqraadiyeynta ay udub dhaxaad u yihiin dhismaha dawlad awood leh iyadoo laga duulayo muhiimadda ay leedahay dhamaystirka dib u eegista dastuurka ayaa waxaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada u suurtagalay inaan go'aan siyaasadeed ka gaarno nidaamka doorasho iyo deegaan doorasho ee dalka iyo sidoo kale qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee dalka Soomaaliyeed mudane gudoomiye waxaan dhowaan dhamaystirnay waan labada qal u soo gudbin doonaa hindasho sharciyeedyada doorashooyinka iyo sharciga asxaabta oo dib u eegis lagu sameeyay innagoo la tashanayna dhammaan asxaabta siyaasadeed ee dalka si loo fuliyo doorasho qof iyo cod ah annagoo marka hore halkan mar kale tacsi uga diraayo eheladii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka geeriyoodayba wasiirkii hore ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Allah jannadii ka waraabiye oo dadaal ku bixiyay sidii dastuurka loo dhamaystiri lahaa ayaan si loo qabyo tiro dastuurka ku meel gaarka ah waxaan diyaarinay dhammaan xulashooyinka qodobada dastuurka ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ka wada xaajoon doonaan oo ay ka mid yihiin hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka qaab dhismeedka hay'adaha qaranka iyo asteynta awoodaha dawladda hanaanka dawladeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya qaabeynta iyo qaangaarsiinta dawlad goboleedyada ku meel gaarka ah maqaamka ay magaalada Muqdisho ku dhex yeelanayso hanaanka federaalka waxaan mar kale gudoomiye adigay dhammaan shacabka Soomaaliyeed xasuusinayaa in ay dawladda federaalka soo dhamaystirtay dhammaan xulashooyinkaas oo ay u dhiman tahay
in lagala fariisto dowlad goboleedyada lagala heshiiyo si loo fuliyo shaqadii nagu aadaneed inteedii badan waxaan idinkugu bishaareynaya anigoo ka wakiila madaxweynaha inaan soo dhamayno sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu horay u ballan qaaday dhabu heshiisiin ummadda Soomaaliyeed inay hesho waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee higsiga dawladda iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay sidoo kale xukuumadda diyaarisay hanaanka dhabu heshiisiinta qaranka iyo qorshe howleedkiisii fulineed oo dhammaystiran waxaa dhanka kale naga go'an inaan ka shaqeyno midnimada ummadda Soomaaliyeed kana mira dhalino mudane guddoomiye mudanayaal iyo marmooyin horumarinta dhaqaalaha amniga iyo cadaaladda xaqiijinta geedi socodka siyaasadda loo dhan yahay waxay horseedayaan bixinta adeegyada bulshada oo ku dhowaad 30 sano aysan jirin dawlad awood u leh bixinta adeegyada ay bulshadu u baahan tahay waxaa xukuumadda u suurto gashay inay la wareegto iskuullo inay la wareegto isbitaallo ay shakhsiyaad iyo shirkado gaar loo leeyahay ay markii hore gacanta ku hayeen waxaa sida kale iyana inoo suurto gashay in wadooyinkii waaweynaa ee Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Afgooy isku xiraayay iyagana loo helo dhaqaale lagu dhiso oo aan mar dhow dhagax dhignay lana bilaabayo usbuucyada soo socda dhismahooda waxaa kaloo rabaa inaan uga mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed sida ay uga qayb qaateen mashruuca isxilqaan taas soo fududeysay inuu gabagabo marayo tiyaatarkii qaranka dhismo ay ku socoto maktabadii dhismo ay ku socoto madxafkii dhismo ay ku socoto dhammaan taalooyinkii Soomaaliyeed oo ahaa taariikhdan waxaa la diyaariyey lana meel mariyey habraacyo siyaasado iyo shuruuc lagu maareeyo arrimaha shaqaalaha rayidka ee dawladda iyadoo la tiriyey lana diiwaan geliyey dhammaan shaqaalaha rayidka ah ayna helaan xuquuqdii ay lahaayeen si ay u gutaan waajibaadka qaran ee loo igmo mudane guddoomiye waxaan ku xasuusinayaa in diiwaangelinta shaqaalaha rayidka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida lagu sameeyey hal nidaam oo la ogaanayo qof waliba meesha uu ka shaqeeyo iyo qaabka uu shaqeeyo waa horumar ay ku tallaabsatay dawladda aan ka wada tirsannahay mudane guddoomiye sida uu madaxweynaha sheegay in badan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa saldhig u ah dalka Soomaaliya uu xiriir wanaagsan la yeesho dalalka caalamiga ah oo dhan iyada oo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed waxaan idinka iyo shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya inaan had iyo jeer u taaganahay ilaalinta midnimadeena madax banaanideena ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin xiriirka aan la leenahay wadamada derisku waa mid ku dhisan deris wanaag iyo iskaashi xooggan oo ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman ee dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada mudanayaal iyo marwooyin sanadka 2019 waa sanadkii aan ka mira dhalin lahayn hadafyada waaweyn ee dawladda sida u diyaargarowga doorashooyinka 2020-2021 dhamaystirka dastuurka dhamaystirka dib u habeynta dhaqaalaha dhamaystirka dib u habeynta amniga iyo dhamaystirka hay'adaha bixiya adeegyada bulshada iyo sidoo kale xaqiijinta in dhammaan halbeegyada loo asteeyey looga miro dhaliyo shaqooyinka baaxadda leh ee ay dawladdu wado mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin si haddaba himilooyinka dawladda Soomaaliyeed
ee hiigsanayso looga midho dhaliyo loona meel mariyo. waxaa xukuumaddu labadii sano ee lasoo dhaafay u gudbisay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waan rajeynayno iyaguna idiin soo gudbiyeen 29 hindis sharciyeed. waxaan si xushmad leh xildhibaanada aqalka sare uga codsanaynaa in la dardargeliyo meelmarinta shuruucda idin hortaalla oo dhammaantood lagaba maarmaan u ah dib u dhiska dalka, nabadeynta, arrimaha la xiriira geedi socodka federaaleynta dalka. mudane guddoomiye ku-xigeenada iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh aqalka sare, maanta waanu taagannahay furitaankii kalfadhiga shanaad ee aqalka sare. waxaan qirayaa in fursado waaweyn ay jiraan, taasoo keeni karta inaan qorno taariikh cusub, innagoo iska kaashanayna sidii aan caqabadaha ina hor yaalla oo iyaguna dhab ahaan u jira ugu beddeli lahayn fursado, annagoo danta shacabka ka hormarinayna danta gaarka ah oo mar walba danta shacabka ka dhigayna shaqadeenna koowaad. waxaan halkan ugu baaqayaa xildhibaanada iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed in loo midoobo danta guud ee dalka, lana aamino in gudcurkii uu isu beddelayo ilays. mudanayaal iyo marweyn, waxaan ugu dambayntii xildhibaanada aqalka sare uga mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha sida hufan ee aad ula shaqaysaan dowladda. waxaana mar kale idinka codsanayaa inaad meel marisaan hindis sharciyeedyada, lana samaysataan xiriir wada shaqayn ee dhow aqalka hoose si ay noogu fududaadaan hadafyada waaweyn oo halkan aan idinkugu sheegay. waxaan ilaahay idinkaga baryayaa idinkoo dhan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed in kalfadhigani uu noqdo kii ugu midho dhalka badnaa, ummadda Soomaaliyeedna ku hagi lahaa dariiq horumar hufan leh. ugu dambayntii, anigoo ka wakiil ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaan halkan ka soo jeedinayaa in kalfadhigii shanaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu furan yahay maanta oo ay taariikhdu tahay 1 Abriil 2019. waa mahadsantihiin.